بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. waxaan halkan ka bilaabaynaa tixana ku saabsan dhaxalkii nabigeena Muhammad sallallahu alayhi wa sallam oo nooga tagay ee ku saabsan shan arrimood oo waaweyn oo diinteena islaamku ay hadaf ka dhigatay ayaan insha Allah xalaqaad tixana ka sameyn doona biidhnillah ta'ala. nabiga alayhi salatu wasalaam sida la og yahay oo wada rumaysanahay oo diinteena islaamku ay nafartay wa khayru khalqillah wa rasuul rabbil alamin wa khatim al-anbiya wal mursalin wa rasuulka nabiga sallallahu alayhi wa sallam ee lagu soo khatimay risaaladihii ilaahay subhanahu wa ta'ala wa afdalul khalqi ala al-idlaq wa inta Allah buu raasaga ugu fadli badan wa sayyidu walad aadam bani aadam oo dhammo sayyidu yahay ambiyada iyo rasuusha ugu horeeyaan wa sayyidul khalqi ajma'in dhamaan khalqigana sidoo kaleeto ayuu u yahay hoggaan ama maaratay afdaluhum. taa markay tahay ilaahayna wuxuu soo dhiibay afdalul kutub kutubta kan ugu fadli badan ayaa loo soo dhiibay oo ah al-Qur'aanul Kariim. haddaba hadday sidaas tahay sacaadadii oo dhan iyo nasiib wanaagga iyo sacaado adduunya iyo mid aakhiro waxay ku soo aruurtay asaga raacistiisa iyo rumayntiisa iyo hadba qof walba intuu ka qaato dhaxalkiisii iyo manhajkiisii diintii loo soo dhiibay iyo camalkiisii shaqadiisii inta uu kala yimaado intaas ayuu nabiga u dhow yahay sallallahu alayhi wa sallam inta uu ku garab marana waa ka fog yahay alayhi afdalus salaatu wa tasliim. haddaba hadday saas tahay waxaa laga maarmaana marka si gaarna culimmada xil uga saaran yahay iyagoo ah warahatul anbiyaa ambiyadii kuwii dhaxlay ayaga ayaa culimmada ah. haddaba waxaa waajib ah marka dadka in loo bayaaniyo dhaxalkaas nabiga nooga taga sallallahu alayhi wa sallam si qof walba intuu ka qaadan karo uu ka qaato. shanta arrimoodoo waaweyn oo nabigu sallallahu alayhi wa sallam uu xoogga saaray 23 sano ee uu dacwada fidinayay 12 sanana ama 13 sano waa tuu joogay madiina maka 10 sanana waa tuu joogay salawaatullahi wasalaamu calayhi madiina 23 sano nabigu sallallahu alayhi wa sallam ma nasan hurdo iyo raaxo iyo ma u badnayn shaqo ayuu qabtay isagoo weliba de nin weyn ah oo 40 sano jira la soo saaray 23 sano shaqo aan kala go' lahayn ayuu qabtay taasaana keentay inuu risaaladan khaalidada ah oo qiimaha badan leh oo weyn dhammaystiran ee manhajka rabbaaniga ah inuu nooga tegay qowlan wa camalan iyadoo qoranna waa nooga tegay oo la akrinaayo oo kitaabkii sunnadii ku cad ku faahfaahsan iyadoo camaliyana waa nooga tegay oo siiradiisii iyo shaqadiisii iyo noloshiisii oo dhan oo baraatika ah ayuu nooga tegay salawaatu ullahi wasalaamu calayh. haddaba waxaan isku dayi doonaa inaan qaadanno safaxaatun mushriqaatun min hadihi alxayaati annabawiyati alkariima inaan qaadanno safaxooyin ama beejaj aada u ifaaya oo aada u nooraya oo nolosha nabiga sala allahu alayhi wasalam ka mid a annagoo si gaara isha yani taargadgaraynayna siduu u dhisay ummadda islaamka dowladda islaamka mujtamacii muslimka ah oo qiimaha badnaa si ay noogu noqoto arrintaasi qudwa ama dayasho wanaagsan qudwa xasana oo annaga lafteennu annagoo soomaali haddaana maanta burbur ku jirna oo aan ognahay dhibaatada aan soo marnay 30 sano burbura iyo 30 sano ka horeysay oo ayada lafteedu yagleel qarannimo lagu jiro weli ummaddu ay noocama iska baaba'san tahay oo ilbaxnimadii xadaaradii aysan aad u dhexgelin 60 sano oo ummadda Soomaaliyeed cumrigeedu uu yahay ka dawla ma aan ka umma ma aan ka mujtamac ma laakiin ka dawla ka kayaan ummaduna waxay qiimo ku yeelataa dawladnimada inay ku dhex shaqaysato ayaa waxaan u baahanahay marka inaan nolosheena dib ugu dhisno manhajkaas nabigu ku dhisay dawladda islaamiya oo arki doontiin oo wax lamida aysan jirin adduunyada usoo maray hadda waqti aad u kooban ayaa horumar adduun iyo aakhira la gaaray diin iyo adduunyo labadaba. marka haddaba annagoo ilaahay tala saaranayna waxaan leenahay shanta arrimood ee waaweyn ee nabigu sallallahu alayhi wa sallam uu ku mashquulay ama 23 sano uu ku bixiyey waxay kala yihiin kow inuu dadka baro ad-dacwatu ila Allah si camaliyana uu dhex galo dadka in diinta loogu yeero waa qaybta ugu muhiimsan oo uu 23 kan kala go' lahayn ayadu oo aan hakad la gelin laanna waa waxa loo soo dirayba
allana subxaanahu watacaala uu qur-aanka ku celceliyo mar walba risaalada nabiga sal allahu alayh wasalam lubigeeda ama nuxurkeedu waa addacwatu ila allah walidaalika qof kastoo muslima waxaa laga doonayaa inuu kaalinta ugu weyn ka qaato mawduucaas isaga ah qaala allahu tacaala alla wuxuu leeyahay waman axsanu qowla miman dacaa ila allahi wacamila saalixa waqaala inanii min almuslimiin yaa ka qowl wanaagsan qofkii yidhi dadka ugu yeera allah subxaanahu watacaala isagoo camal saalixa la imaanaya isla markaasna yidhi waxaan ka mid ahay muslimiinta marka dadkaas ilaahay qowlkiisa ugu yeeray ilaahay xaggiisa ugu yeeray ee qowlka ugu wanaagsan la imaanaya ayuu imaam u ahay nabigeena maxamed sala allahu alayh wasalam maxaa yeele waa rususha ambiyada iyo atbaacdooda weeye culimmada ah marka axadka qowl wanaagsan ma jiro jawaabta waxaa weeyaan ile siiqat listifhaam ayuu ilaahay ku weydiiyey oo la yidhaha istifhaam taqriiriya oo macnaheedu waxa weeye laa axada axsanu qowla miman dacaa ila allahi wacamila saalixa waqaala inanii min almuslimiin axad ka wanaagsan qowl ahaan ma jiro qof alla ugu yeeray dadka camal saalixan la yimid muslimiinta inuu kamid yahana sheega saddexdaas jumlo waa saddex jumlo aada u muhiima oo mujtamaca haddii saddexdaas kale inta la fahmo aayaddaas suurat fusilat ku jirta inta la fahmo lagu camal falo dhibaatooyinkeena boqolkiiba boqol ooba xalismaayaanba midda koowaad waxa waaye in dadka loogu yeero yani dacwada wanaagga loogu yeero dacwada waxaa laga wadaa wixii alla uu raalli ka yahay dadka in loogu yeero wuxuu reebana laga reebo oo alla uusan rabin wax kasta oo mujtamaca dantiisa ku jirtana waxaa ilaahay doonaayo wey subxaana wa tacaala wax kasta oo ilaahay uu ka cadhoonayana wax mujtamac baabi'iyey wey ilaahay wuxuu ka cadhoonayaa colaadaha xasadka xaqdiga dagaalada sharci darrada ah qabyaaladda gaalo ushaqaynta gaalo raacnimada macaasida fasaadka nacaybka waxaasoon ilahay waa ka cadhoonayaa bedelkooda wuxuu jecel yahay in ukhuwa iimaaniya walaaltinimo islaama la isku jeclaado in diinta la ilaaliyo in ilaahay la caabudo in ummaddu isjeclaato in dadku walaaloobaan in nabad laga shaqeeyo in dowlad laga shaqeeyo horumar laga shaqeeyo yacni adduunya aakhira taama laga shaqaysto marka dacwadu marka himiladaasay xambaarsan tahay maaha darsi la akhriya muxaadaro la jeediyay kaliya sida dadka qaar u fahamsan yihiin dacwadu waa manhaj nololeed oo dhan oo mustaqiima oo ilaahay oo raalli ka yahay oo dadka lagu dhisaayo wey oo dowladdii iyo shacabkii iyo ummaddii o dhan lagu dhisaayo marka waxa weye waman axsana qowlan miman dacaa ila allahi aad u guda weynta waxaa cajiiba marka jumlada ku xigta fiiri alla wuxuu yihi waa camila saalixa camal saalixna la yimid haddaad tahay daaci baan noqonaya aad leedahay laakiin adugu camalkaadan la imaaneyn oo cibaadaadkaagu ay daciif yihiin oodan salaadihii ilaalinayn oodan soomkii la imaaneyn oodan zakadii iska dhiibayn xoolaa ka dhiibayn oo aadan xajka tegayn oo aadan arkaan iimaan la imaaneyn oodan diinta ilaahay ku dhowrsanayn oodan dadka dhiigooda ka nabadgelayn carabkaaga maarata iyo gacantaada ka nabadgelayn oodan waalidkaa baari u ahayn oo aadan muslimiinta xuquuqda ilaalinayn oodan masaakiinta u naxariisanayn oo aadan amniga ka shaqaynayn oodan midnimada ummadda ka shaqaynayn ma ihid camal saalix lama imaan marka camalka saalixa aada u gudawan yahay wax kastoo wanaagsan in ka shaqaysid wey fiiri marka dacwada saad u ogaatid qiimaheeda waa camila saalixa haddana waxaa lagaa markii aad dacwadii u istaagtay ee aad camal saalix la timid waxaa ugu daran haddana waxa weye in koox koox loo kala jajabo wey dadku inay isnacaan wey in dariiqooyin la keeno wey in jamaacad la keeno wey in axzaab isnacaysa la keeno wey in dawaa'if la abuuro waayo in qoys la isu naco wey in reerihii xataa odagii yani wada dhisay ay qoys isu dagaalamaan isu nacaan wey waxaasoo dhan waa fasaad walidaalika allah subxaanahu wa tacaala wuxuu ku soo khatimay wa qaala inanii min almuslimiin oo yidhi qofkaasoo dhahaayo ama yidhi anugu muslimiintan ka mid ahay ereygaasu erey aada u guda weyn wey jumladaas laba macno ayaana si toos usoo degdegaysa markii aad ku dhawaaqaysidba mido waxa weeye inaadan dhammaan kooxahaas tacasubaadka badan leh oo nacaybka ku dhisan oo welihii islaamnimada ama islaamnimada in la isku xiriiriye la rabay kasoo ka samaystay iyagoo qaanado iyo kooxo iyo jamaacaad iyo magco ay isku xiriiriyaan inta kale oo muslimiinta walahaas iyo walaaltinimadaas iyo iimaankaas ukhuwada iimaaniga yani ilaahay ku waajibiyana ay ku fogeeyaan liajli weelkan yaro ay samaysteen ay ku fogeeyaan arrintaasay aayaddu ka digaysaa waana ummadda muslimiinta waxa baabi'iyey wey maanta ummadda muslimiinta waxa daciifiyey wey ummadda muslimiinta waxa xerooyinka ku kala xirxiray wey ummadda muslimiinta inay dhiigooda inay isdilaan waxa keenay wey inay isgaalaysiyaan waxa keenay wey daa'irada islaamka oo la iskula wada jiray oo ilaahay subxaanahu wa tacaala uu daa'iratu liimaan uu yihi inama almu'minuuna ikhwa fiiri inama waxa weeye waa adaat alxasri waalqasri
إنما إنك لما هم المؤمنون مؤمنون الشيء وهم إخوة وكوا ولا لها ولا لهم با ولا مؤمنين با ولا له عيد كلا ولا لماها. ولذلك مفسرين توحي ليهين ضدك أن دائرة الإيمان أن كوا ولا ليسن المسلمين ولا ليس ومؤمنين مؤمناتك أن كجعلانين وحكبها يا قاعدة داس مؤمن إيمان كيسوا ناقص ما الله قال يسينا لكن مرة دو تعصب كوح جماعة حزبي جماعة طريقة وحي ربطها وكل دقيقة أنت كلا نوع لادينايو مفاهيم ديني وأسقى أو سميستي مد حركي وأسقى أو سميستي مد حزبي وسياسي وأسقى أو سميستي مد كوحيات ومعتقدات وضعيفية وأسقى أو سميستي هدو أنت كل دقيقة أنت كلا كوع لادينايو وحوك النحب حي أداة كاس حسرقوا إلهي ويقول إنما المؤمنون إخوة إيمان كيسا ضعيفة هدو سن إبر أو سن أهين مركا واقف مسلمين تنا وحكون غنايا عقبض midnimadoodii buu dhaawacaya yani wadajirkoodii buu dilaya awooddoodina waa daciifinaya walidaalika waqaala inanii min almuslimiin macnaha koobaad ay leedahay waxa weeye wuxuu ka fog yahay wax kastoo daa'irada islaamka ka sokeeya magaca lala baxo ha noqoto hadda maanta caalam islaami waxaa wareeriyey jamaacad islaamiya jamaaca salafiya jamaacat alakhwaan almuslimiin jamaacat altabliiq jamaacat alkitaab jamaacat altaxriir jamaacat ismaaciil balaayo intaasoo jamaaco marka qofkii wuxuu ku mashquula maanta oo dhan daa'iro yar inuu maarata uu ku dhex jiro daa'irooyin kaleeto inaysan khuseen oo kaleeto marka qowlullaahi waqaala inanii min almuslimiin dadkaas wala muslimiin mood ahan kulligood maxaad marka adiga aad guri yar isku soo xiraysaa maad kulligood walaala ka dhigatid waa nasiib darro marka waxa weeye waa in mafhuumka qur'aaniga cumuumkiisa iyo shumuulkiisa oo hadafkiisa uu yahay caalamiyatu risaala waa u imaan doonaa dadka oo dhan in la mideeyo haddaan anagu caalamkao dhan in la miday islaamku yimid aan muslimiinta si kala qoqobayno si kala faquuqayno haddana weliba dadkii saxwada ku jira haddana si kala qaybinayno hadda waxay maraysaa haddana kuwii daa'irada ku wada jiro halka magac ku jira inay si kala gogaan haddana akhwaan isku ahaayeen shalay waa shanay usii qaybsamayaan salafiyiin ay ahaayeen shanay usii qaybsamayaan dariiqatu suufi ahaayeen intaasoo magacay leeyihiin axmediyo qaadiriyo sayliciyo saaliciyo haddana mid walba waa sii qaybsamaysaa waxaasoo dhan waxay liddi ku yihiin qowlullaahi tacaala waqaala inanii min almuslimiin لأنه مسلمين تي إلهي وقلت لك إنه مذايو ودعودي عمل صالحة لقوم مذايو أي لك فرفرية وأنا مدك أنت إن يعني سيد اليهود اللي يقين أو القرآن قال الله نوش تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى وحد مودي سائني مديسيهين هذا وصف قاس مسلمين تو ما تدل سارينها قال ذي أيا وحي لي أو دينكم سو صومالي مودي هنا سو مسلم مودي هنا سو سني مودي هنا بحيث دليسين مرك بل حقول حد لو جواب أساس مسلم وضعنا لكن ما حنا لنا هوس أنسي قيب سنة وعين سدلنا أهل السنة يوهابيو أخوان المسلمين فلان الشباب أنت كلا قالوا يغانين إحنا فاهم كلامها ومنكرات أنا كان نوي أنا قعنت أنا كان قل هو من عند أنفسكم أنا أكتن وحن كأبور النوي إلى رالك يا ماهن وحدين تين وقش أنا ماهن إذن جاء مركب قدم كوبادم خالد الدون إن شاء الله هذا المقدمة دي كجرنا ما أنت وحويه الدعوة إلى الله الدعوة إلى الله ومعنى هذا وياي مفهوم كاس عام كأه إلهي وحن كبرنا سبحانه وتعالى إنه حقا وسقه مقطعية صوص عضاء أيان أفرت قيبضة كنا تنسكوا كون ضد المرة دونا إلهي سبحانه وتعالى حقا وسقه إلهي نخلي قد سكينا المسلمين ضد المسلمين وحلق النبي صلى الله عليه وسلم الدعوة وحبذا كوذا قاته وحن أقول نصيحين لما ولا لا مسلمين كلب كان يسند دونا إني آدوا للسعودان برتان لحلق النبي صلى الله عليه وسلم إني سكقدن in ay duruus badan oo mawduucaas ku saabsan ayay culimmadu ay duubeen oo culimmadu ay akhriyeen annaguna waxbaan kasoo qaadan doonaa oo maaragtay maqaadic baan soo gudbin doonaaye waa in dhaxalkaas qiimaha badan le walaalayaalow cumrigeen inta ka dhiman inaan la noolaano oo aan isaga dhex galno oo aan habeen maalin ku bixinno oo aan gudbinno oon dadka barno oo ilmaheenna ku tarbiyeyno xaasaskeena ku tarbiyeyno nafteena ku tarbiyeyno walaalaha muslimiinta aan ku tarbiyeyno taas aan ku dadaalno haddaan rajo ka qabno inaan biri nabigeena maxamed sal sl soo fadhiisanno oo aan carshiga hoostiisa ilaahay aan aakhir la fadhiisanno oo aan jannada la galno oo aan nuurkiisa iyo wejigiisa nuurka badnaa aan insha allahu galab iyo subax fi jannaati cadnin inaan ku raaxaysanno oon la rafiiqno aan dhaxalkiisa ku dadaalno wasal allahu ala sayidina nabiyina maxamedin wala aalihi wasaxbihi ajmaciin
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. قيبتان وحان وهذا دونا أنه قيبته ورقصه هذا الدعوة إلى الله يسيد النبي صلى الله عليه وسلم ووجود ذلك ففهمت هذا يقعدون دونت إن شاء الله حلقات بدن. قيبتان وحويان العقيدة نشر العقيدة النبي صلى الله عليه وسلم وحواد وجود ذلك إنه عقيدة وناكسن إسلامك وكتر بيه ضد قال هاي أو وثنيين هاي رجع عبود هاي أو جزيرة العرب دجنا هي دمان ومضى الإسلام كردن هي أمة أفريقيا هي أمة آسيا وأوروبا إلى الدعوة عالمي وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا إلى الله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم ضدك أو دم الله صادر دمان جنسياتك بشرك وما أرسلناك إلا كافة للناس ما أنا كصادر إلا ضدك أو دم كصادرني بشيرا ونذيرا حالة مد إشارين أيضا دقائق مركا وحوي مركا الدعوة داس عقيدة داس وحي كل سنتها مركا أسستا يكون سنتهاي وحالة إرادة وحا وين أفر شيء أفر رمضة وين أفر تاس عقيدة إسلام كي يكون سنتهاي هذا نلش إسلام كورنا ما كل حجرته أفر تاس ومركا النبي صلى الله عليه وسلم ففهمنا أفر تاس متكستو كمذا وحالة جايبة إني 8 حلقات كليات لكن ففهمت أنكم قلت أنا ما تدل مرينا أفرت وحا الرأي توحيد الله سبحانه وتعالى جل جلاله إلهي إلا وحده توحيد كيسة معنى هذا وحوية كون كان وحل أحد لعابد وأون هل معبودك جروي الله جل جلاله الله كل كيسة العابد كرا العبادة كلها صغيرها وكبيرها إلهي بأسكله سبحانه وتعالى عبادة أردن إلهي بأسكله لا يجوز مبنان صرف أي شيء من العبادات إلى غير الله سبحانه وتعالى إن لو إيلو أمن لو اللي وحون عبادة وعبادات كمذا إلهي أحد أنهين والشركي وقال لما من بنانا دين تانا لو قبحيا أرنتها سوى أرن آدو مهمة ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن بقول لي أفرت من سورة وسمانها سديت اللح سورة دود وحي كسود دقان مكة وسورة ده القرآن كان بقول كيف سديتا أكب ضموي سديتا اللح سورة دود مكة كسود دقان لباتن يستدل سورة المدينة كسود دقيقة سورة المدينة كسود دقيقة حوي سورة البقرة كوا سورة البقرة هي آل عمران هي النساء هي المائدة ترسو أفرواي هي سورة الأنفال هي سورة التوبة لح هي سورة الرعد تضبط هي سورة الناس سورة الحج وتغاني سورة الأنبياء كذا ما يصير حج لو قال له وأذن في الناس بالحج وسديد هي سورة النور وسورة الحج سورة المؤمنين كحكت نور كحكت على دور سورة النور سقال هي سورة الأحزاب طبعا كاسو قرآن كسورة ده دار يجران يكون جران سديد طبعا كو سهرت طبعا ككلاته أفر وحويان وحيكون جران وكوس السعود أفر تاسن وحوي سورة محمد صلى الله عليه وسلم هي سورة فتح هي سورة الحجرات وسحقان وحافر كوا سورة الرحمن أفر نوتاس أفر تونوهي ستا طبعا ككلياتو كحكتا وحويان كبل لو سورة الحديد هي سورة المجادلة هي سورة الحشر هي سورة الممتحنة هي سورة الصف هي سورة الجمعة هي سورة المنافقون هي سورة التغابن هي سورة الطلاق هي سورة التحريم تبنى واتاس أفر لواتنا هستا أفر تكوهر توحواي سورة الدهر هل تعالى الإنسان أم سورة الإنسان ولا يرى هي سورة زلزلت إذا زلزلت هي سورة البينة أو كريسة إذا سورة البينة وريسة سورة زلزلت هي سورة النصر إذا جاء نصر الله أفرت نواتاس سديد يلا باتنكاس مركب مدينة كسودين سديد يلا باتنكاس سورة ضد سديد اللي إحنا مكي كسودين قرآن كاس ما كسود دقة مركب وأنت بدن وحوقات وقه الله توحيدك كان مدينة تيسوا كهذا اليا سجر توحيدك وكهذا اليا لكن سيدا ما كان لو قفها فهي سورة مكي جا أوكلت ما بجر تبع سورة مكي جا وحفظ الله هذا القرآن القرآن المكي هو كله توحيد وما ينسى مركب آخر شيء أو سورة كره مركب كسب بالود وحكسب بالود مارت سورة الأنعام آية أخرى سورة مكي جاي وارد ست توحيدك وقال ليس وحكرت أدوك هالان سورة مكي جاهو قصص الأنبياء والمرسلين محايا النبي صلى الله عليه وسلم وحال الدنيا انت على سيدة ولا كل ما
in loo sheego in looga horreeyay dariiqan dhibka badan leh dadkii ka horreeyay dhibaatadii ku dhacday waxay u tahay tasliya iyo tathbiit asagaa lagu sugayaa marka ilaahay tathbiit buu uga dhigayaa tathbiit waayo wa kullan naqusu calayka min anbaa'i rusul maa nuthabitu bihi fu'aadaku ilaahi subxana wa tacaala waxaa weeye waxaan kugu dul warramaynaa rusushii wararkeeda wax aan ku sugayno qalbigaaga lagu adkeynaya si aad u geshid maaragtay muctaraga iyo dagaalka dacwada oo waxa ka hor imaanaya aadan dan uga gelin waxa muuse soo maray oo nuux soo maray oo ciise soo maray oo ibraahim soo maray ayaa looga sheekeynaya oo huud soo maray oo saalix soo maray oo shucayb soo maray ilaa aakhirihi luut soo maray dagaal iyo dhibaato marka si isaguna u wajaho fasbir kamaa sabra ululcazmi min arusul aa la yidhi usabr siday u sabreen raggii niyadda yani caziimada iyo go-aanka adag u saaxiibka ah iyo risaalada culus iyo maaragtay juhdiga badan oo rususha ilahay ka mid ahay haddaba walaalayaal jaanibkaas caqiidadu marka murtakasaadkiisa waxaa uga horeeya kow ilahay tawxiidkiisa waxdaaniyat llahi subxana wa tacaala oo macnaheedu uu yahay yani laa yajuuzu sarfu ay cibaadatin ilaa ilayhi jala jalaaluhu isaga cid aan ahayn lama caabudi karo qofka caabudona shirki ku dhacaya cibaadaduna waa gudo weyn tahay oo waa ogtihiinoo ma aan kaliya salaada iyo soonka iyo kaliya maaha cibaadada waxaa kamid ah cabsida ilahay baa iskale subxaana wa tacaala cabsida dhabta ah cabsida oo dabiiciga ahoo makhluuqa laga cabsado maska iyo libaax iyo laga cabsado laga hadli maayo cabsida dhibaatada kugu soo socota axadka kaa celin kara oo isaga aad ka baqaysid inuu dhibaato ku gaarsiiyo waa allah subxaana wa tacaala oo xataa maska qofka qaniinaya iyo libaaxa ku cunaya iyo qofka qaraxa kula googoobayo kugu dhifanaya iyo kulli waxa waaye waxa dhibaatadaas axad kaa celin kara allah wey subxana wa tacaala walidaalika waxaad ka baqaysid asagaa lagula cararaa asagaa loo baryaa asagaa ilahu iga celiyaa la yidhaha axad kale leeyahay hebelow yaan qarax igu dhicin iga celi ma jira maya axad la dhihi kara ilaahu maaragtay inaan abaar igu dhicin amaan faqri igu dhicin amaan cudur igu dhicin gaqabo ma jiro oon alla ahayn ma jiro idan axadka loo cararo oo dhibaatada laga hoos galo oo dhibaatada inuu kaa qaado la weydiisto allah wey subxaanahu wa tacaala haddaad axad kale ka raadisid inuu dhibaato kaa qaado shirkiyaad ku dhexda fadhida walidalika alla wuxuu leeyahy subxana wa tacaala aman yujiibu lmudara idaa dacaah waa kee midka ajiiba kan dhibaatadu hayso goorta u yeerto markuu u yeerto yihaa yaa rabbi midka u leeyahay midka axadka dhahayo axadka loo yeerto yaa waayo allah wey subxaana wa tacaala ailaahu maca allah ilahi subxana wa tacaala ailaahu maca allah qaliila ma tadakaruun marka waxaa weeyaan taas horta in la ogaado wey waxaa sidoo kaleeto sida dhibaatada isaga looga yeerto inuu alla kaa rafaco khayrka iyo wanaagga aad rabtidna axadka loogu yeerto inuu ku siiyaa waayo allah subxaana wa tacaala caafimaadka awlaadda maalka cumriga uu ku barakeeyo kuuna dheereeyo maxaan ku ihahdaa shartuu kaa qabto mansab haddaa rabta inuu ku siiyo waxaad rabto o dhan kullu shay biyadihi jala jalaaluhu asaga ayaa haysta walidalika waxaa ka mid ah qowl llahi tacaala wamaa bikum min nicmatin famin allah uma idaa masakum اduru failayhi taj'aruun oo ilahi subxana wa tacaala في سورة النحل وما بكم من نعمة فمن الله وما بكم من نعمة waxa idinka aad ku sugan tihiin oo nicmo ah famin allahi alla xaggiisa ka ahaadeen caafimaadka awlaadda maalka mansabka amniga horumarka khayrka sacaadada jannada kulli sakraadka mudka lagu fududeeyo qabriga oo lagugu badbaadiyo wamaa bikum min nicma ma axay rabta ahaato famin allaahi alla xaggiisa ka ahaadeen haddaad caqiidaysid in ayrkiis alla kayrkiisa uu ku siiye ka warane waa diin la-aan waa shirki ma axad bixi karaa jiro awlaad oon alla ahayn ma jiro ma axad caafimaad bixi karaa jiro oon alla ahayn ma jiro ma axad mansab dhibi karaa jiro oon alla ahayn ma jiro ma axad maal dhibi karaa jiro oon alla ahayn ma jiro idan taas walidaalika waxaa la yihahdaa huwa asmaadiisa waxaa ka mid ah asamad asamad waa maxay waa alla wax kasta loola qasta asaga wixii dhibana asagaa laga hoos galaa wixii dheefana asagaa la weydiistaa kullu shay asagaa hela gacantiisa ku jiraan taasna waa inaan caqiidaynaa idan tawxiidka aasaaskiisu waxaa weeye ilaahay inuu yahay allah almudabir lihada alkown koonkan asagu inuu maamulo wax walba asaga oo haysto biyadihi kullu shay huwa yujiru walaa yujaaru calayhi asagaa wax badbaadiya asaga dushiisa wax lagama badbaadiyo taas inaan rumayno wey waxaa kaloo majaalaadkiisa kamid a tawxiidka kamid a nabi maxamed sal lla alay slm rumayntiisa raacidiisa tawxiidkay ku lamaansantaha tawxiidkay ku lamaansantaha maxaa yeele tawxiidka diinta maxaa lagu soo galaa laa ilaaha ila allahu muxamedun rasuulu llah haddaad tira laa ilaaha ila allahu keligood maxamed rasul an raacsin tawxiidkaagu maqbuul maaha muslim ma noqon kartid oo haddaba ingiriis iyo maraykan iyo qaarkood laa ilaha illa allah waxba kama qabaan anuu nin ingiriis hadda kor kala doorday
بروفيسور توني ليرادو جوردن معلن نوقاها لغدا وحو أنا أقول لا إله إلا الله أقون سنوي واعتراف سنة I believe وكله وابرمي سنة هذا الله إنه كل جزء ويا إنه محمد قدر مركلي بس حاس كاملين إبراهيم رمي سنة وارمي سنة إنه رسول الله عيسى سيدا كله موسى سيدا كله محمد كله قدر إنه رسول كله هي اللي سوق بجبيه تاسن دوت كقبل كله خلاص نك لمن أفكر إنجليز كأدو يقين أنا أقول واحد إسكاه جج أنت هذاك اللي قلي ولا مرسيواي ويقول لي هدان رمايو هدان أمريكا المتكلة تشارلز إيه ما أنا متكلة إنه رمايو واجبين سبب واسكسو عنه ولا مركوا عيسى اللي سحره ولا عيسينا وقلقلوعة وجروه هدان وحو كله وين إلهي إنك سواء سوق بروستانتي وهاي أودي ذيو كاثوليكا إلهي يقول كي سيرا مرة إلهي لا ولا نقول ديدن هو أنا وحنا من سنة ورا أظن إنه هاي أو رسول الله أساس الله عجيب لكن هو محمد الله قال دعوة واحد نعم إذا محمد رسول الله توحيدك كل ما صنته ولا سعته هذا التوحيد كأذن مارة الله إيمان السجوا سكودا ولذلك حال عبارة كلام ممكن عبارة الشهادتان ومحي الله بدل القراءة ولا إله إلا الله محمد رسول الله توحيد الإسلام قال محمد رسول الله معناه محيطها أفكر إن لقي كلمة أما الوعي العليا محمد رسول الله كليل لما معناه هذا وحوي إن النبي قال راعوي صلى الله عليه وسلم تجريد المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم النبي قال الراعو الله برحت الراعي ديسه وحال لو راعيا في العبادات عباده اصلا اسوق الله ما لما كيني كرو الاصل في العبادات المنع الى اصولينته عباده وحا اصل ان الله سمي كرين الا ما ثبت بالدليل واحد اللي كسغن ما هنا تضبط ما انت عبادات جاب كودا اسك سميسنا ناس ويقول لي مارته خير ان وجدنا من لقى يلاي عباده إيه إن لو لي ما عباده سيدنا النبي يقول صلى الله عليه وسلم صلوا كما رايتمون يصلي ايوا له سان ادو كجر ادو كذا خذوا عني مناسككم حجكم وحله مناسكت اي قاتا وحول بأس انه راعوي سلق السان كوصل مركي ليري وحول قولوا وحتراين اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم انك حميد مجيد فيري ابو بكر يا عمر يا علي يا عثمان 100 الف فكر صلي وابو فصحاء العرب وين مكو صحابتنا ويا عرب سل بقل اي اناشيد يقوا سمين كران ونبي يكون امانه هبين ما يكون رديان لكن هو هي العباده انت انتان ولذلك وحي الانسان وصلنا يا رسول الله وان قرني بين الانسان سلامين الا السلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته اتعيدك لو بري النبي صلى الله عليه وسلم لكن سانكو سلقنا وشيغي بس صلاه دودي دحدغان في خارج صلاه النساء واستاذ كل سلنا صلاه ابراهيميه افضل الصلاه marka waxa warba cibaadada nabiga oo la yimi sallallahu alayhi wasallam mar walba waxa way ayada ay cibaado sax ah ayada nuurka naboodu saaran yahay ayada ilaahi jecel yahay ayada ajirka nabiga ballan qaaday lagu helaya taana waa laga maarmaan in ay ilaalino waxa kale oo laga mid ah in sida uu dadka ula dhaqmay caqiidada waxa kamid ah arrimaheeda alwalaa'u lilmu'miniina walmu'minaat walaha iimaaniga ah mu'miniinta iyo mu'minaadka iyo muslimiinta muslimaadka iskale qaybta horena waa ku soo sheegnay tan caqiidada kamid tahay taas dacwada aasaarteeda kamid ahaday iyo majaalaadkeeda halkan caqiidada kamid tahay tan asal ku tahay waliba ilaahi wuxuu leeyahay walmu'minuuna walmu'minaatu ba'dhum awliyaa'u ba'd يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر قيبتها سيد دعوة من كجليسة لكن أسلك عقيدة كم تهايو الولاء لله ولرسوله الله وحول آيات كلا إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون في سورة المائدة مركب وحوي ولا سن عقيدة كم تهايو وإن هذا مسلمين مؤمناتك مؤمنات كأسيسين هي مسلمين مسلماتك هنكلا فقوق قلدان بقولك بقولان سينا كوان ولا دغالميا بقولك بقول عدو كدغنايو انتان سميسنا وحيابان اسكو خلافسنا يبان كدغالمينا الى يوم القيامه الى ان كدمنو ومد دينتا ماشي دغت مانتا مسلمين دغتay taas ma ahan waa inaad wixii la isku khilaafsan yahay dooda ka furan waa laga niqaashaya nin shirbay oo caamiya bal caamiga intaan gelin ilaahay quraanka wuxuu ku leeyahay fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila allahi war rasul ayulah waxa isku qabatiin oo shay ah ilaahay rasuulkiisa u celiye dooda ka furan niqaasha ka furan laakiin hadii la yiraahdo seefaha iyo qoryaha isku qaadanayna waxaan isku qalabnaa waa isku dilaynaa waa isku biraynayna ama waa isku haajin masaajidan saxirayna sida gobolada qaarkood ka dhacda ninkii aniga khilaafsan masaajidka laga xiro waa wahabiye yuusan masaajidkiisa lagu dukanin ama hadhow adadra aniga dariiqada masaajidkeeda la xiro labaduba dami waay يا أخي طريقة ذكر مسلمين وهابية كواس كل شيء يا أخوان المسلمين كأن يسلفين تنا مسلمين دائرة السلام في كودا جيران أدوكم حد يقول عياري دائرة إلهي أنت مرض إلهي دتك أجر صدق حكش محد وكرة تورتور يسا ودقم حمواي
waxay faham xumaan waaye faham xumo diintii qalad loo fahamsan yahay walidaalika nin caamiya oo baadiya iska jooga ayaa wuxuu yidhi murmaan macalimiin hadday murmaan minhaajka loogu miiriyaa saddex walcato min ku tal saddexa loogu miiriyaa ka timid asalkeeda marka hadda ka hor aan youtube ka dhigna qof ka raba hau noqdo kaas laakiin hadda maxalu shaahidkeena tan waxa weeye macalimiin hadday murmaan minhaajka loogu miiriyaa hu yidhi fiiriya muruqaa lagu kala reebaa ma dhihin qoraa la isu qaataana ma dhihin waa nin caamiya laakiin fidradiisaa faraysa macalimiin hadday murmaan minhaajka loogu miiri kitaabka minhaajkaa la kala furaya asa leeya bal nin wal masliisa ka sheego taasaa dhaqanka islaamku yaqaana laakiin ma yaqaano in masaajida la iska xirto in la isku jabadeeyo in la isdilo in la isfaquuqo in la istarxiilo in la islaayo in la isberbereeyo waxa hadda ay sameynayaan wiilashaan wareersanoo dhalinyarada oo maarata diintii yani si qalad u fahmay waan ka hadli doonaa waqtigeeda marka tawxiidka marka majaalkaasna waa kaas majaalka afraadna waxaa waaye aliimaanu bilaakhira biyowmi alaakhir in maalinta aakhiro la rumeeyo iyo wixii ka dhacaya qaybiyaadkaas waxay ka mid tahay arrimaha ugu muhiimsan caqiidada islaamka qofka aan rumayn kula ma akhbara canhu nabiyu sal alla alay waslam wax kastoo nabiga uu khabray ee uu nooga sheegay oo ashraadu saaca ay ka mid tahay saacadda calaamadeed ka mid tahay qabriga waxa nugu dhacay ay ka mid tahay qiyaamada waxay ka dhacaya jannay naarta siraadka iyo saacadda kulli qiyaamka saacatulqiyaama kulligood waa inaan rumaynaa ilaa maarata ilaahay subxaana wa tacala uu kala xisaabinayo xisaabta maalinta qiyaamada dad badanaa maarata ayaa caqlaaniyiin ay wareeriyeen iyo kuwo kale oo qur'aaniyiin sheeganayona qur'aanka alla qur'aaniyiin waa lacnatullaahi calayhim niman dhahay sunnada nabiga looma baahnaba qur'aanka kaliya nagu filan soo baxay oo mujrimiin ah marka qur'aaniyiin yaa la dhihin hala yidhaha alla qur'aaniyiin walla sunniyiin waa kuwan qur'aan haysan sunnana haysan wey waa malaaxida maxaa yeele qur'aanka sunnada say u kala reebaysaa nabi maxamed qowlkiisa ma rabo ee qowlkii ilaahay uu kusoo dejiyaan qaadanaa nabiga maxamedna waa ku kufrinaya aqwaashiisii waxa weeye waa kufrun bilqur'aani wasunnati macan waa qur'aankii sunna lagu wada kufriyey waayo wax laga aqbalayna ma jiraan laa yaqbal allahu minhum sarfan walaa cadlan ilaahay sunno iyo waajib iyo sunno midna ka aqbali maayo waa mujrimiin wayna soo bixi jireen waa zanaadiqa marka kuwaas warkooda laguma jiro marka kitaabka iyo sunnada nabiga sal lla midka afartaas arrimood ayaa caqiidada ugu waaweyn waana faahfaahin doonaa biidn illahi tacaala ilahay waxaan ka baryaynaa subxaana wa tacala walaalayaalow inuu naga dhigo kuwii dhaxalka nabiga sal allahu alayhi wasalam ee tawxiidkaas iyo caqiidadaas ka kooban tawxiidka iyo alimaanu bilyowm alaakhira iyo wixii la xiriiro o dhan iyo alwalaau lilmuminiin walmuminaat iyo sidoo kaleeto in aan la nimaado inaan rumayno ambiyadii iyo rusushii iyo qisastii ku saabsaneed oo dhan iyo inaan nabi moxamed sal allahu alayh wasalam iyo mutaabacdiisa la nimaado ilahay ana waafajiye subxaanahu wa tacaala intaasaan iidana qeybtan kusoo gebagabeynaa wasal ala sidina nabiyina maxamedi wala alihi wasaxbihi ajmaciin بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين ولا ليال waxaan ku jirnaa dhaxalkii nabiga salى الlahu عalayه wasalam iyo ku dhaafin nasiixada aheeday oo barnaamijkaanu si gaar u xambaarsan yahay taxna ah waxaan qeybta koobaad aan ka dhignay addacwatu ilى اllahi subxaanaه wa tacaala qeybtaasaan marka hadda rabnaa inaan faahfaahino oo aan ilaa 7 qodob oo asaasiya ay dacwada arkaanteeda ka kooban tahay 7daasaan marka in sha allahu dul maraynaa maanta xalaqaadkeena maanta 7daasay dul marayaan si dacwada mawduuceedaan u dhamayno biidn illahi tacaala walaalayaal dacwada waxaa uga horeeya awal shay waxa weeyaan qofka daaciga ah hadda horeyna waataan u sheegnayo qof walba wuxuu nabiga sal allahu alayhi wasalam dhaxalkiisa uu ka qaato oo dacwada ugu weyneed ayuu nabiga sal allahu alayhi wasalam shafaacadiisa iyo u dhowaanshadiisa iyo maxabadiisa iyo lajaaliskiisa iyo in sha allahu khayrka lagu helaayo shafaacadiisa iyo la socodkiisa iyo dacwadii iyo diintaas ayuu ka rajeynaya walidaalika qof walba ama ha badsada ama ha yaraysto qof walbana majaalka ilahay u sakhira ka galo laakiin aaday muhiim u tahay arrintaas marka majaalaadka uga horeya waxa wey marka sida soo socota majaalka dacwada qaybihiisa hoose waxaa uga horeysa ayuha alikhwa altacliim dalabu alcilmi الsharci ayaa uga horeeya si aad daaci u noqotid oo diinta aad u fidisid
لا دعوة للجاهل أو لا يكون الجاهل داعية نك الجاهل كداعي من قكره نن دجال هذا يمركو دجال هذا ويحب إنه سلب كيس قاته قلب كيسه وحوجر رأيه أو قلب كيسه أنا وحويان إنه هو كيس قاته لبسته سيفتيسه أو جرارته قرقيسه أو عبايسته أو قرق دجال لما يو بديش ونحى دوك دجال لما يمديسه إنه درار صدو إنه دقاجوي مركز لكن ده ترى أنا أقول حتى ودن قرون حتى ودن دجال هذا نقفك نفتيسه اللوجا يتهاي وقف ضيعنا متى marka diintan fidinaya daaci baan noqonaya diintana ma aqaano qofka ayay ma jirto qof naga aqbalaysana ma jirto walaalay waxa ugu horeeya marka inaan diinta barano talabul ilmi sharci cilmiga inaan dalabno way diinta inaan barano way cilmiga in la dalbana waxay u baahan tahay saddex shay in la helo wax la yiraahdo xusnu talaqi si wanaagsan in loo qaato cilmiga iyo in wax sax la qaato صحة المتلقى به وحل قادنا إني وحسح أيين إيه ترتيب تلو قادنا إني ترتيب علمك المدى لو قاطعه وأنفوضه هين وفافاهنين هرت مركا أقرأ يسقفك الطالب العلمك وحل الدنيا وأقرأ علمك إنه برتا دود داعير وإنه نقضه وحوي قرآنك إلى إنه برتوي حسن التلقي جام لا بينا إيه ترتيبات كيسي قرآنك أقرأ هذا أردتني أن قرآنك أن ربه كأغاني وحبتك أغاني داعين ونقدر نربى وأن نسوي نكاس وأيدي القرآن يعني هلو مارت جبناي دتك محو شيء وعدي أم الدين توحوي مركز أريها ترابا إن القرآن كلا يسوق توي سنة إن سوق توي صلى الله عليه وسلم مركز كو حوجر قرآن كانوا حبا إن معلم لا تجو تلقي صح لقاته مصحف كان سوق هذا كليه أما تي في كان شدنا كليه ما لو ما قاته إن المعلم أتكتدوي ولكن محمد صلى الله عليه وسلم يعني إمام المعلمين أهل القرآن جبريل معلم كيسة يقرأ آلي أسوي له أنت ما أخري وح ما أخري أنت يدي على اللقدة ساس رفع ساس للجوجي مركز يقرأ هذا الليل مركز معلم واكو شبيعنا يا واكو عناننا يا واكو عذاب يا ما أنت قرأ عادي ميستو قضاء عادي ميستو كلها وحصل هذا اللي تعلمنا يا ومنهج جبريل عليه السلام طيب كمذا والله قاعتي مركز وإن معلم أتكتد ومعلم قرآن كتسوح بدي سدوا هل كاسو علمك بالله يا اللبو وحوي هذا إن الشيخ أتكتد مركب معلنك سؤال ماتد يا تكتب برتد وين كتاب برتد وين وحال إرادة علم أبناءكم صغار العلم قبل كباره اللي يجري علماء سلفكم المهين القرآن علم كيس يركب برا أنت كيس وين لقاري وحال الماء إن لحفظ السيو متونته هوسه كتبته هوسه كتبت اللغة ده إنه أجرمي قبرته إنه ملحق برته إنه متمد برته إنه ساسو السعودة هذا أنا أسيق قد بمارتي قدر ندها الفيد أسيق قد ساسو السعودة وعلومت هذا بمستويات واسع وكسعودة علم الحديث كأنه برته 40 نوع أو كب الله نصوص حديثته كده من هذا أنا كتبتها ساسو وساسو أخرجته إلى صحيحينك يسننته ويكسو ختمه سيدا كلته علوم القرآن تجويد كأنه برته القرآن سيدا الله أخرج سيغديسه كده من هذا أنا هاصل قصار علومت حديث كأنه برتو بيقونيدي هي مارة تدريب الراوي هي مقدمة ابن صلاح هي كتبتي مارة ألفية السيوطي ألفية ابن صلاح كل علم حديث اللي برتو أو اللي قلنا نظامي إنه برتو أصول الفقه إنه خاص برتو إنه صبرتو مارة أو أخذت كتاب كي رايو مارة جويلي أو أصول الفقه وكسب بالله صوت الصعودة إلى وكسو قارو أصول الفقه للحاج رمات اللي يرادو عبد خلاف أصول الفقه للفلان أصول الفقه إلى مستشفى آمدي يتكسو قالت كتبتها دواوين وصوص عنيسا كتبتها فربانتا وتحنوي وتا الله مكتبة وحوي أساس إسوية لأن يقول سيو كلواويين كان يرد بالله كان كحجة إلى الكتاب كمرجع كسو ما يصير مركز علم كان إنسان لا برت قفك أوذا قفك أن أوذنا إن كفلا أو عبادة وكتب وسيستو دينتنا أو حكا قرته أو حكا قنصده وإنه كبرتها dadka oo dhan ma awoodi karaan inay dhammaan kutubtaas akhristaan laakiin asaasiyaadka sida tafsiirka quraanka iyo xadiista waxbartood iyo canjaradaha culimadu ay duubaan iyo wacdiga iyo wax ka qaado fiican dhaxalka ibra ka noqonin adiga maxaa yeelay fi suurati an-naml ilaahi aayad waxa uu dhex dhigay khatar ah oo aad u khatar ah aayadaas good weyn ku jira hatta idha jaa'u qala akadhabtum bi ayati ولم تحيطوا بها علما أم ماذا كنتم تعملون فوقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون أيها الله سبحانه وتعالى أهلا قتروي آيداس نحذرين لهذا مركز أخني السبع هير كسر علمي كجوت هذه لفت هذا وحوي ونفت هذا تهميسا
حتى إذا جاءوا قرتي مادين وما أنت قيامون قال له وحوي إلى سؤال أنا ويدينا يا أكذبتم بآياتي آياتي مسوا بينسين ولم تحيطوا بها علما وقال إنكم أذنكم بنا سوماها وحبكم أذنكم بنا كم صبرنا سوماها حبتكم تقاني آياتي سوماها ما أنت وحديت من إنكم دينتي حكى قاني سوماها أما ماذا كنتم تعملون هذا محل وجرتين وما حد قبنيسين مركب هذا آياتي أن سودجي بقول أفرط ممكن القرآن كان سودجي آياتي سأذن وحبكى قولنا وإذن دينتي وحكى صبرنا وأذن محل قبنيجي واحد قبنيسين محل كم مشغولين إلى أن يكون شيء محل وجهه الله سبحانه وتعالى إلى آيات وحاجة مشغولة بيرفلوا مال ليه مارت وحيا وكل محله شيء مركا إن قرآن كإلهي إلا برتول فهمه ولا جمرمان قرآن كأجيران لفظ جيس معني أنا فهمت ذوق أي سؤال أشخاص كقول عنا قيامه وعمل فشل واحد أودي كنت عمل كل التمادين والصلاة دي التمادين آية الوضوء يعني مرتين يعني إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وضوء آية القرآن كبرتين كتب الفقه كبرتين السفينة دي أبو شجاعي كتب تكلات مرتين فقه قاس دبي لي وحوم آخر سوء أقل شيء فن كستبه ولا بس هذا أقوم سنة عامي كستحت على قد هاي علوم تخصصية وآلات يعني تخصصية هي علوم ضروري هلا غيبية علوم ضروري قف كستو مسلم على غربه للتعبد لو غربه حواي قرآن كأنه وحكت تقانو سيقع عبادي ستو معني سيقع فهم سنتهاي أحاديث سنة ولو هالكتاب لو كتاب لكن يكاح رسته عقيدة أو كو هيدا ما يتقانو أو عقيدة إلهي لغرهم يسين هاي فهم سنتهاي إيه سيدو كليتو أحكامته عباداتك صومك يزكده يحجك أعماش اللي قربه طهارته إنه يتقانو انتاس أقيرا وإنه تقانو انتاس وحال لما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب وحان واجب كادعين إلا إنه لتم هذا ما هنا سكون واجب ونغنى مركا إلهي ما عابدك انتاس قولين قال لك مرمان مركا إذن وحاقوه يا مركا طلب العلم الشرعي علم إلا برتو إلهي جاهل من لكم عابدو جاهل من داعي لكم من نغضو هذا وحان قال إنه nin داعي ربا إنه نغضو وربا دحلك إنه كان وحكوية صلى الله عليه وسلم أما قبرت أن الداعي نغضو ودحلك وحكوية لدو لابد إن الدين ده حكبر أتوي قضب كاس قضب الكوباد وأنا لقى مرمان قضب كلا بعض حوي والله أخوتي الأعزاء وهذا مهم كأ أنت أنا كاس أوجد بالمركة قضب كان مركة علمي إن لا ضلبأه دبعت بدنا كجست ضد بدن أو اللي يراه ويل يقبله وهذا الفيسبوك كان يقلب كان مقيم وحي وقت آذو بدن كل بحيان وحاسني في صدام كان دقيسو هذا عالم كانوا المسلم قال وحاس غرائب كا ولا قصوب بحناية هدات ترى ما أنتم مثل مرة فرأسا وحناية وقت كانوا وارد منايا وإحنا كيف أيدي ميسي أفكار ترى بدن هي حركات واحد لقوا قسله واحد لقنحه واحد لا يابه واحد غرائبه واحد منكره واحد خيره وحسنا ما يشكو ذبحه marka ina waqti badan la isaga qaadin way waxaas aziimadii ina waqtigaaga nidaamsatid al-istifaadatu min al-waqti ee aad qayb kamid ah aad cilmiga ku dalabtid kutubta aad ku akhrisatid cilmigana waxa loo dalbaa sidaas loo dalbi jiray cilmigu wuxuu leeyahay in loo xireysto u baahan yahay haddaad sheekh u tii kartid u tag haddaad u tii kalina gurigaaga adoo jooga kutubta idoo duuban ay maanta qalabkan casriga ajizada ku dhex jirtaa idoo kaadis yani maartay kaaseedkan waa taala oo canjaladii caadiga ah oo rikoorka laga shakaro qofkii aan qalabkan gaarin ama meelaha u suurtoobayno maartay dadka qaarkood ay u diidayaan inay qalabkan casriga isticmaalaan waxa weeye rikoorkaaga soo qaadanaysa oo soo gashanaysa dalaq ama flash gasho ama canjaladii caadiga ah suuqa ka soo iibso bacdad ka soo buuxso tafsiirka ku jira ahadiista ku jirta kutubta ka buuxda ina waqti siisa kaliya laga rabaa intaas sheeka ku jira leeyahay ma la yacni ama aad ku jira leeyahay maartay waqti dhumis ama TV waqti ka qaadalay fiirsiisa ama aad Facebook mashquul leeyahay waqti si inaad cilmiga dalabtid wala laga marmaan haddaad doonayso dhaxalka nabiga wax ku yiri sallallahu alayhi wasallam haddaad doonayso diiwaanka ducada in lagu qoro daaci aad noqotid wala laga marmaan waxa kale laga marmaan wax sax in la barto kutubta qaarkood waxa ka buuxa munkar waxa ka buuxa diin la'aan waxa ka buuxa fusuuq waxa ka buuxa ilhaad waxa ka buuxa shirkiyaad waa in waqti la isaga qaadan waa inaad xulatid dad caqiida sax ku baraayo oo tawxiid sax ku baraayo oo ilaahay kugu xiraayo aakhiru zamaankan waxa aad u batay dad diintii inxiraaf ku qaatay iyo dad u tacasubayo oo kugula diraayo waliba kugu qasbayo wax la yaab la waayo haddaad aragto kutubta qaarkood waad ka xishoonay inay shirki xataa kutubta dadaan aaminsan caqiida u aaminsan waxay gaartay dadka qaarkood inay caqiida ka dhigtaan waxa la yiraahdo al-hulul wal-ittihad culimada oo yaqaaniin waaweyn oo wax soo akhrisatay oo yaqaaniin nimana waxay la gaartay falsafadii iyo cilmul kalaamka inay yiraahdeen koonkan oo dhan baa wada ilaahayo hal ilaaha la isku waa illa abdu subhanahu rabbil alamin
الله الواحد الأحد الصمد الفرد الذي لم يتخذ ولدا ولا صاحبة الله سأل اسكو أوغاي waxay yiraahdeen marka fahila garta falsafada inay yiraahdeen eeyaha iyo doofaarada iyo dameerada iyo looda iyo geela iyo ariga iyo geedaha iyo bani aadamka kulligood waa ilaahyo kulli ilaah la caabudo way wax adoon ma jiraan bakoonkan kulli ilaahyo ku nool falsafad diin la ana la gaarto kutub culum akhrisa waxa isku qoran yihiin maanta oo taal xamaray kula taala iyo hargeysa iyo maxaan ku yiraahdaa iyo garow iyo meelaysan aan male ila qaarkood ay gabay ka tiriyaan wamal kalbu wal khanziru illa ilahuna وما الله إلا راهب في كنيسة أساسوير وما الكلب والخنزير إلا إله من لنا نقاد إلى إلهنا من لهم معايا إله دواء يقول إله يجيب أنا إله ما معها مركب وحوي يعني أي كنيسة كان نحفر ضوافار كله وحكى لما هو إله ذي نيرهن مركب وحاسوا الدين الآن فلسفة ولا قارسة لأنه علمي أيان تلقي جيسي يعني وحن الواحد يدين فهم كيسي قاعدة المحرر قاعدة الوحرة قاعدة الوحرة معي مركب وإن فهمت الدين كتاب كالسنة السلف الصالح فهمه كما فهمه السلف الصالح وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم سلف الصالح النبي إمامه أبو بكر الصديق يا أبو بكر يا عمر سيد عمر يا سيد عثمان يا سيد علي يا أبو عبيدة يا الصحابة الكرام كأيضا يا تابعين أئمة الهدى سيد إمام أبي حنيفة إمام مالك إمام الشافعي إمام أحمد أفرت إمام ساسي وكل دأوين آيين ساسين علماء سقوط آيين إيه نمان أي مدي إيه بخاري إيه مسلم إيه ترمذي إيه أبو داود إيه النسائي إيه ابن ماجه إيه غيرهم أصحاب السنن والبيهقي والدارقطني وغيرهم والخطيب البغدادي وابن حزم ومرت كل جود أي مدي وين هذا ابن حزم حقوق ظاهرية كجرتين لكن فقه قوي حق عقيدة وقت سنة وسلفي ولبا مركز دتك صار دن وأصحاب العقيدة والسلف الصالح لإرادة خير القرون سد هذا قرن وفضلك بدنا النبي صلى الله عليه وسلم عقيدته دي على غير وين التمادين لكن يعني نقول رين كنا بوبي كنا هذا كنا ساسريه كنا الى شاكت معان كل انه ولي هي حكا خصي اسقو فانايا او دا انا ولي وحو ما ogta adiga adu wali حتى kasoo qaadba isaga ilaahay wali ka dhigay u taala adiga wax ka khusay ma jiraan adigana walaadiya ku diiday ina walaad raasatid walaad wixii kaga taaliman oo taqwa kaga xirnaa gali alla inna awliya allah ila khawfun alayhim wala hum alladhina amanu wa kanu yattaqun alladhina amanu wa kanu yattaqun marka iimaan taqwa laga helo dad asuu inta dadaalay been maalin cibaadaystay oo ilaahay waligiisa oo adigu dama ogid balaka ilaahay cinda ilaahay oo kiyaan ka dhignaba adiga wax ka khusay ma jiraan hawl ilaahay asagu dhaxaysa way adiga taada laga rabaa adigana walaayadi inaad soo gasho awliya laga rabaa hadaadan soo gali karno iimaan taqwa ay ku yartaana istighfar iyo ilaahu idin dhaaf inaad tiraado walba adoon saalix noqoto ilaahay ku xirno tawxiid kulli ma taa laga rabaa laakiin hadana adiga wal daciif ay hadana aad makhluuq kale daba socoto ee aad tiraado anu kanaan wax ka sugaaya ilaahay inaad iska dhaaftid hal su'aal waa khatar ومدة ضدك كوبا بان تاسواي والدين لانت ماشي كتير كاسواي مركب ولا ليالو وحال لقى مرمانا إن قدوة أن كدقن النبي محمد صلى الله عليه وسلم هي سلف الصالح والصحابة التابعين يتبع التابعين أئمة الإسلام انتاس أيان إن شاء الله قضب كان وقبحينا قضب بدك الدعوة الحريرة نقول إن شاء الله صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين وحن كجرنا ولي قضبك أما قيبتي كسب سنة الدعوة إلى الله وحن كسو هذا الني دعوة قيبت التعليم تأه كتبت الآخر سنة سيد الله آخر سنة إن علوم الله بهاي منهج كله فهم هاي جد كله مرايو إلى آخره قضبك الله بعض وسجن عنه أن قدر نوعوي العمل بالعلم سيادة نقطة الداعية لابد أن تعمل بما تعلمت به وحد برتي وأنا كعمل فشل حجاء علمك ونغنى يهتدنك عمل فلن إمام أحمد بن حنبل وحلا ويدي كتاب كان وين 40,000 حديث يكون قرنتاي وكتاب كيس وين ومسند الإمام أحمد سيد كل جمع سوا ولا حفظنا كل قد تشوك يقين تشوك قال قرأ حفظ كيس على الكتاب كاس مركز سوري إنما يحفظ العلم بالعمل به علمك وحال وحفظ يا هو يري إن له عمل فله الله أكبر عمل مركز 40,000 حديث ودش كي يقانو إلى حافظ وهاي إمام الحفاظ وهاي سووا شك مالي بخاري مسلم أردنيسة كم ده هاي كسر دوادي على رأينا سيب بخاري
لكن إمام أحمد بن حنبل رقم واحد وأها. ولذلك إمام الشافعي من كنت أقول شيخي سأه وحوله جري الشافعي يا أحمد حديث كان بالإيسو بار أكتاد سوكية هي لأنك أنت أعلم منا بالحديث هذا حديث كان جاي غاني حديث كان وصاصه ساسه الهجرة إمام أحمد وكليه إمام أحمد مركز يقول له تقص الشيخنا حديث كان صحيح واي حدثني فلان 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 دق سنة كفر سنة بس معنى هذا ما إمام الشافعي وسن سكون إمام هنا حافظ بقى لكن فنيا ولا وكله الرياء أسونا إمام أحمد وحال لوجه الرياء إمام الشافعي كهري فقه يفهم قعديتك ولذلك أحاديث أسونا أو حفظين هاي توصل له الهجرة شيخي إمام كيجي شيخي آيو يعني أحاديث محيتها قواعد كل واحد ما يسوق يوافق لبدا حديث لأنك أنت أفقه منا هذا أنا فقه سنة هذا أنا أقوم بدنا مركز أسوأ فجرة إمام الشافعي عادي ما هين وأنك أصول شرط أصول الفقه قال هذا أصول تأثيرية دينتنا أصول يعني ممكن الكلام زنادقة الشيعة بلايد أنك لغة قليوة وأصول الإسلام كالجوح في دي أسوق إلهي وكبت بهذه الإسلام ممكن إمام الشافعي وحوها وحاله كرا وحوها قمر الأئمة أئمة يعني بدر الأئمة وها يعني ضيع عفرت مناظر أو أئمة كل حجرها على كل حال وحوي مركا وإن عمل عليهم هذا عمل وعالم لم يعمل بعلمه معذب قبل عباد الوثن أو صاحب السمد صاحب الماهد الساد وعالم لم يعمل بعلمه عالما علمه يسكو عامل فلين معذب قبل عباد الوثن وحل عابدا كو وثن كدغ عابدا يكور على عابدا ساكور عذاب كور حديث النبي وافقته صلى الله عليه وسلم يا فلان ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهى عن المنكر نن العذاب أول من تسعر بهم النار وحكم ذا نن يعني ما ارتدتك وحفر جري أو أسجى مركز حمان توضى مر جري دتك وحكر ريبا يسمى جري وما أريد أن أخالفكم إلى ما أناكم عنه أو يرنبي لها شعيب مكتا مدونا إن إذن دوامر وحان ذكر ريبا يعني مركا ننكي أضى مر جري دتك وحكر ريبا عذابك أسألك بالله بيا عامدي وفرج لا منقر وحين لي أديك محل عذاب يا ذو أنا قاد شيخنا هذا واحد منه شيخ جته مركز سوري منكر كنا معروف كنا ودي فراي من الإيمان منكر كنا ودي كريبا وأنا الإيمان هاي واختر مركز وعلى دونا يدعيه وحودتك كريبا يا سكرت إنه تيس كريبا كو وحو فراي إنه سكرت فرتوم العمل بالعلم ولا كمرمان ولذلك إلى القرآن كوحو هيداري علماء بني إسرائيل وحويري أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون أيوه أتأمرون الناس بالبر دتك ما واحد فريسين سما فل وتنسون أنفسكم نفتين إلا بيسين وأنتم تتلون الكتاب إذا كانوا كتابك آخرين يسين تورد دوش كي يقين علماء ويوحى الله أفلا تعقلون عقل ماذا الله هنا مركب وحال الدونة يقفك وحدودك فرع إنه لي ماذا أسوي سدوا الإيمان يسا مركب سدح قبال غيرها وين أودت ماذا علمت أدتك فري سدح شيء واحد هرتكو عقيدة الصوبنا على قاربها عقيدة التوحيد كل سنة على قاربها كتبت عقيدة وحاو عن سنة هذا أو لبا قرنجي قرونتي السدحات هذا اللي قري أو مارت اللي سكوت الراعي جميعا إلى زمن كان الجوجو عقيدة الضحاوية الإمام الضحاوي عقيدة دي وتعالى عقيدة أهل السنة والجماعة والصحة أي قري جميع المذاهب أهل السنة خلافينا وكدقي وأكدق طبعا موضوع وحن حقل دونا مركا قيبت عقيدة كجرنا إن شاء الله الدعوة كجرنا مركا وحوي وإن مركا قفك مسلم كأه إنه لي ما ظهرت كو باب العقيدة إنه عقيدة صح لي ماذا عقيدة السلف الصالح إنه لي ماذا ربا عقيدة كل سن تسليم إلا إلهي اللي سني بالنصوص سيدا السلف كفهم اللي فهم أي الدنيا إلهي كل جسم العبد جل جلاله إلهي اللي حصه سيدا وأسقوا وجعلي هاي النبي يسوع حسن الله حسن صلوات الله وسلامه عليه مركر تاس ولا قمرمان العمل وحكى له قيبت له نحو عبادات كأنه دولت ما يصير النبي يقول صلى الله عليه وسلم مثلا معك سوق هذا صلاتها النبي صلى الله عليه وسلم طبعا يتضبر على فرضه أيون ريم وإن الحفظها سل حفظنا مركب وإن صلاة لجد كذا بالخشوع سدح معنا يا إلهي فري الخشوع فيها والمحافظة عليها والديمومة عليها سدح صلاة نوجا واجبة وحاول إن دائم نو صلاة دمرنا والدكان مرنا مسكنا فارغ أي ماي وإن الدائم تد إلى نفسك وجرته أنت ميرك أقول بجوجبا قال تعالى والذين هم على صلاتهم دائمون كو صلاة دائمة لابد أن دائم تو تدو حاجرة صلاة الدكان دوق كده دوق ما أنتم جالس ليه وسكت دكان ما أنتم سنجالس ليه مسكنا فا
markuu dhoofayo ma dukanayo, markuu aroos ku jiro ma dukanayo, marka uu isbitaal tagu jiran ma dukanayo, marka uu xaflado qabo ma dukanayo, markuu shir ku jiro ma dukanayo, markuu diyaarad saarayo ma dukanayo. waska khalaas ala khiyaar. waxaan la yaab jir diyaarada aan raacayno hal qof salaada subax war dukada salaada waa birgi markii kusoo aado safarada dheer oo kaleeto waa la wada jeefaaba iyagoo hurdada farraqasinaya qoraxda soo baxaysa. war dukada salaadu diyaaradan saarnay kulleen war diyaarada saaranta salaadu marka soo ku waajib kursigaaga aad joogto kaliya ku inta taabsatid ku gabagabaysatid iska duko meesha saa u jeedan halkaan wajiga ku jeeso salaadii ka tigin adiga marna aysan ka tigin salaada. muhiim ma aha inaad yan baxdid wayse raadisid oo saf u gashido diyaaradii oo adeerta buura dhex socota ama degaysa ama lama la ogolaba inaad meel yar luqad ka qalbisid oo marna aad gadacad u dhacdid laga yeeli ma waxaas. kursigaa ku fadhiiso ilaahay kuma waajibin adoo kursigaaga fadhiyo laftiisa iska duko kursigaaga ilaahay ku barakayna. marka taasna waa laga maarmaan waa xifdu salaa. tan saddexaadna waxa weeye in lagu khushuuco salaada dhexdeeda walidina fi salaatihim khaashicuun salaada ku khushuuco way mu'miniinta ilaahay badbaadinaya jannaat firdaws oo ballan qaaday yani firdaws wax sahlan ma aha ayuu siinaya alla subxaana wa tacaala. marka saddexdaas arrimood xifdu salaa wadaymumatu calayha walkhushuucu fiiha waa laga maarmaan salaada. salaaduna bacda tawxiidida arkaanta islaamka ugu weyn walaalayaalo. marka camalkian ka hadlaynay oo dacwada qofka daaciga inuu camalka la yimaado salaadaas 17 ragca inuu ilaaliyo saddexaas macna uu ilaaliya kow ah. waxaa kow ah asaguna maadaama qudwo xasan uu yahay inuusan camalka saalaxa isku yarayna oo la yimaado sunnadii. sunnooyinaa jira sunnooyinka oo la imaanayo oo nawaafil la yidhaahdo waxaa ugu muhiimsan 12 ragco oo iyaga aan marna laga tegin iyo salaatuleylka oo witrka wadata witrka 3 ragco ama 5 ragco ama 7 ragco. witrku waa 1 ragco wey oo salaatuleylka aad ku witr uga dhiganaysid sidiisaba. marka 12 kaleetana waa rawaatib. rawaatibtaas 6 doorkaa wata kaligiis 4 ka horeysa 2 ka dambaysa maqribkan 2 wata cishuna 2 wata fajrkan 2 ka horeysa. 12 kaas nabigu wuxuu yiri sallallahu alayhi wasallam qofkii daa'ima 12 ragco oo aan faradka ahayn habeen iyo maalin 8 albaab ee jannada midka raba ayuu ka galaa. xadiis saxiix ah waa bishaaro aad u weyn waay wax dhib lana ma aha. 12 kaas ragcana aad ay muhiim u yihiin. meeqaad haysataa 17 iyo 12 meeqa waay waa 29. waxaad ku darsanaysaa ugu yaraan 3 ilaa 11 oo ah salaatuleylki macal witrkeedii. 3 ragca ka dhigo 5 ka dhigo 7 ka dhigo 9 ka dhigo 11 ka dhigo 11 ka badin. haddii waqti dheeraad aad haysatid ragcooyinka dheereey sida nabigu sallallahu alayhi wasallam xadiiska Caaisha 11 ragcood ka jiray tiri ma kana yaziidu la fi ramadaan wala fi ghayr ramadaan. marka 11 haddii lagu daro meeqa waay 29 waa 40 ragco. haddaad ka yaraysid oo meesha ugu yar ka soo qaadan adnal kamaalka oo 3 ragca 3 ragca waxaad ku dartaa 29 waa 31 31daas ugu yar. haddii rawaatibtaadu sida shaaficiyadu ay rajaxeen 10 ka dhigatid oo doorka 2 ka horeysa 2 ka dambaysa kaliya ku koobtid iyo 2 maqrib ka dambaysa 2 cisha ka dambaysa 2 maqrib fajr ka horeysa waa 10 iyo 8 27 iyo 3 marka la isku darana oo witrka ahna waa 30. ibn qayyim wuxuu leeyahay 30 kaas wax ka yar mu'min maba u banaa maba ku haboonaba inuu 30 kaas ka yareysto ceeb wey. 3 waa birig inta soo ka 3 ragca inuu dukado wax ugu yar waaye. rawaatibtiisana 10 kaas in iska yaraan waaye 17 ragcana waa waajibba maxay isku yihiin 30 isku yihiin. marka 10 iyo 3 sunno ay 17 farada waaye waa 30. 2 ragco duxaa hada ku dari karto ku darso ama 4 ka dhigo waa iyadana khayr hana daa'imin hana ka wada tegin. duxada waxaa khayr badan in marna la dukado marna la iska dhaafo sida nabiga ka sunnatay sallallahu alayhi wasallam. marka ikhwati al-aziz salaadu waa sidaas. soonka 30 soon ama 29 bisha hadba intay noqoto hadday 29 noqotona waxa waaye bisha ramadaan waa wada haystaa ajirkeedii iyo 6 maalmood oo wadaca bisha hadda naga dhamaanaysa 6 maalmood oo aan soonnay oo wadaca oo soonka ka duwaneed 30 kaas 6daas iyo 3 maalmood oo bil walba ah sanadka inaad la timaadid. haddaadan khamiis iyo jimco la wada imaan karin oo iyadu ka dhigaysa 8 maalmood bishii 2 biloodna 9 maalmood kaaga dhigaysaaba oo kasii ajir badan tahay 3 maalmood. laakiin nabigu sallallahu alayhi wasallam xadiis Abu Hurayra 3 maalmood qofkii sooma bil walba فكأنما صام الدهر كله يوير النبي صلى الله عليه وسلم قفك رمضان صام 3 مال بالك كصوم كوي 10 قبل هذا كلته اسوا سنه كنا نصوم ولا مديا لانه الحسنه ب10 امثالها حسنه 8 جر ayaa lagu dhifanaya. marka taasna waa arin jaanis aad u weyn waay. marka qofka khamiisi jimco ku dari isniin iyo khamiis ku dari karnaa ku soo daro 3 maalmood iska dhaafo 8daas baa la yimaado. qofkan labadaas awoodina ee hal maalin kaliya rabana khamiista ha ka dhigto
khamiista marka bisha 4 khamiisadaa ku jirta 3 maalmood iyo dheeraad waxaa kula sii jira maalin kale waliba marka haddaad daa'imtid inaad khamiis kasta aad soontid haddaad isniin ku dari weysa xataa waxaad la mid tahay adoo sanadka oo dhan soomaad la mid tahay ajirka waa lagu qoraa ikhwata alacizaa marka haddii zakada xoolahana waa iska kooban tahay boqolkiiba 2 bara laga qaadaa malyan ka dhan waa 25 maxaan ku iraadaa $1 milyan ninka iska 25,000 kaliya iska dhiiba fiiri 975 kunna isagaa jeebkiisu ku haysanaa muslimiintana 25,000 oo dollar uu siinaa $100 ninka haystana 2 bar uu siinayaa marka 97 iyo bar ayuu uu reebana 97 bar wax badan waa marka akhwat alacizaa marka waxa weeye yani saasay diintu u sahlan tahay xajku waa qofka awooda waa 6 maalmood isaga dhanba maalintii siyaado bilaabanaya maalinta 13 ku dhamaada 12kana waa laga soo tegi karaa galabtii marka isaga dhanba waa 6 maalmood marka diintu saasay u arkaan islaam oo dhan intaas waayba tawxiidkan hore uga soo hadalnay marka ilaahay subxaanahu wa tacaala xaq nagu sugo camalka saalixa waa in la yimaado waxaa kaloo acmaasha saalixada ka mid ah ikhwat alacizaa qofku inuu sadaqada jeclaado iyo ixsaanka iyo badliga waa ka hadli doonaa bandi keligiisa gaara waay oo aad u muhiima ilahay waxaan ka baryaynaa subxaanahu wa tacaala dhaxalka nabiga sal allahu alayhi wasalam cibaadaadkiisa iyo caqiidadaas suuban iyo camalka saalixa iyo muslimiinta khayrka lala jeclaado iyo dalka iyo dadka oo la anfaco ilaahay inuu naga waafajiyo dhaxalkiisa dhaxalka nabiga sal allahu alayhi wasalam sal allahu ala sayidina wa nabiyina muxamedin wacala aalihi wa saxbihi ajmaciin